بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. shalay waxaan soo bilownay ama aan kusoo guda jirnay casharkeenii waxaan kusoo hadalnay hypertensive disorder during the pregnancy qaybtii koowaad ayaan kusoo hadalnay. maantana waxaan ka hadli doonaa qaybtii labaad. waxaan soo fahnay si guud general usoo fahnay hypertension muxuu yahay with pregnancy, meeqa loo qeybiyaa, wajida mataqaanaa classificationkii, definitionkii, incidencegii, pathophysiology and pathological ama complicationska ku dhacayo oo systemka uu saameynayo preeclampsia. maanta waxaan gelaynaa ama aan sii wadaynaa risk factorska maxay taa keeni karo inuu dukaanka ay gasho preeclampsia. preeclampsia riski waxaa dhacday general waxaan ku bilaabeynaa markii la dhahay age hooyada. age waxaan leenahay waa extreme age maxaa waaye 20 years or less than 20 years ama above the 40. yani waxaan leenahay this is extreme age, yani aad u yar tahay inay aad u weyn tahay. yani haddii uu ka badan yahay heerka 20 sano ama ay ka badan tahay 40 sano waxaa marka extreme age. sidoo kale waxaan leenahay body mass index more than 30. hadduu ka badan yahay 30, yani more than 30, yani ka badan 30 hadduu yahay body mass index waxaa leenahay waa risk of preeclampsia. inuu ku dhaco risk of preeclampsia waa hadduu age ka yahay extreme waa riski. haddii mataqaana uu yahay body mass index hadduu ka badan yahay 30 waxaa leenahay waa riski. فنجي علينا هو جرعة. سيدك روح علينا هي يسكو حق القيمية سواء عناوين يو صدق حق وكل قيم سنة سنة صدق حق وكل قيم سنة حقوق فضانا يو يعني نعدو فهم. لكن مركز سوق أقدر كي وانا ما هي وانا سامر بقى أخي مننا شركة أفرع وانا وين ورا جانا جينيتك أو ستاتيك ميديكال جانا فكرة مركز تحصل من بسبب إيه كده إكستريم أما إيات إكستريم إيه الله بودي ما سيني كده صدق كبرية. waxaa la helaa genetic factor. waxaa la arkay preeclampsia hooyada ama walaasha haddii gabadha walaasheeda ay qabtay ayadana riski ugu jirto. yani example kale haddii hooyada qabto maalin haday qabto iyada hooyada walaal ugu jirta riski 20 ilaa 25% if haday tahay maalin hooyada qabtay preeclampsia. if the mother preeclampsia waxaa leenahay riski ugu jirta 25%. sisterka ama walaasheeda haday preeclampsia iyada riski meeqa noqon kartaa? iyada riski waxay noqon kartaa walaasheeda qabtay iyadana waxay noqon kartaa riskiga 30 ilaa 40. noqon kara riskiga 30 ilaa 40%. marka waxaa la waa genetic factors jira marka preeclampsia marka waxaa leenahay waa family history exact. yani waxaa leenahay mostly waxaa leenahay mother and sister ka tahay 30 ilaa 40 and mother ka qabto hooyada qabto waxaa leenahay dadka ugu jirta riski 20 ilaa 25%. marka waxaa jira la iyadana obstetric history maxaa ugu muhiimsan? waxaa muhiimsan inay tahay riski ah primary gravid waxaa leenahay waa risk inuu ku dhaco mataqaana preeclampsia markii laba bardhigo multiple and grand multiple. markii lala barbardhigo hooyada dhashay 2-3 ka badan iyo 5 iyo markii dhashay iyo markii primary gravid ama primary parents ee markii ugu horeeyay uu qaaday asoo kuma qeyn. laakiin ayadan ugu multiparents riskiga way ka yar tahay. laakiin haddii ay hooyo multiparents ama grand multiple oo ku dhaco preeclampsia waa high mortality and morbidity rate. yani mifan way ka badan tahay. yani waxyeeleynta uu ku yeeli karo hooyada iyo cunuga markay tahay grand multiple waa wuu ka badan yahay markay tahay primary gravid. marka waxaan leenahay primary gravidada waxaa leenahay waa high riski inuu ku dhaco the incidence wuxuu ku badan yahay riskiga primary gravid more than multiple. if haddii uu ku dhaco laakiin multiple or grand multiple preeclampsia ku dhacdo waa high mortality and morbidity rate. this marka waxaa leenahay waa obstetric waxaa leenahay risk factor. this waxaa leenahay obstetric waxaa ugu muhiimsan leenahay waa primary gravid. sidoo kale ayadana waxaa multiple pregnancy. waxaa leenahay twins ama multiple pregnancy ama twin waxaa leenahay waa riski. marka laba bardhigo hooyada oo single ka soo uu yahay twofold. marka laba bardhigo marka primary gravid laba bardhigo multiple wuxuu ku badan primary gravid. marka laba bardhigo multiple pregnancy marka laba cunug hooyada ku wada marka cunug uu ka badan twofold ku badan. sidoo kale haddii qabtay previous history of preeclampsia. haddii qabtay previous history of preeclampsia hadda ku dhacan waxaa waa badanta waa
sevenfold يعني inuu ku dhaco sevenfold yani markii lagu bardhigo hooyada uusan ku dhicin preeclampsia iyo hooyada preeclampsia ku dhaca waxaan leenahay waa marka uu ka badan yahay yani waxaan leenahay risk factorska waxaan leenahay previous ay ahayd previous preeclampsia hadda risk ugu jirta ka risk badan tahay sevenfold markii lagu bardhigo hooyada aysan weli isku dhicin preeclampsia sidoo kale waxaan kamid ah long interval waxaan lahaa long interval of pregnancy maxaa ka wada يعني pregnancy hore iyo pregnancy marka u dhaxeeyo long interval يعني مثلا inagii ugu horeeyay ayaa dhashay ugu dambeeyay last before 10 years hadana now she is pregnant so waxaan leenahay this is waa long interval yani inagii hore iyo hadda kan ee wada waxaa u dhaxeeya muddo dheer marka waxaan leenahay waa risk factor marka waxaan leenahay waa risk factor waxaa loo yaqaan leenahay long interval ama long birth interval between labada pregnancy u dhaxayso waxaan leenahay risk marka waa ziyada threefold yani هيدراليز في تحت نقول حوالي هيدراليز في تحت هيدراليز في تحت انت ما فهمت طبعا هيدراليز في تحت نقول نقول بيو نقول هيدراليز في تحت يعني اما ساينس سلام نقول ايوه بيجري طبيعي لونتي مدحي وحلا هيدراليز في تحت فترسات الوداع مسكرات ما جاب من حلا ده وحلا مرجين اوبس هيدراليز في تحت انك اخر وحلا شويه يجي هيدراليز في تحت نقول وريسك انه نقول بريك لامسي محي زياده الحرب بلاس انت نقول الحرب بلاس في كنسه وأنا كسرت إن باثولوجي كمان من حالنا ديزيز وحالنا هو this is very hydrolytic task هذا تفهمه يعني ده تاع molar pregnancy ده molar pregnancy تاعي وعريس كويس تاعي ما بقى pregnancy يقول لك early onset نحكونا before 20 week إنه كل إكرام pregnancy يقول لك كتاي كيني كتا وحالنا هاي molar pregnancy سبب حالنا هاي أيضا حالنا هاي حيوان ومتقنا وريسكي كميرو حالنا هاي متقنا زيادة ريسكي إنه تاعي متقنا disease متقنا molar pregnancy بعد عارف عني temporal factors and genetic factors or like family history and obstetric factor medical بيجرى factor أو سامينا أو risk factors أو medical كمان هدي تاعي pre-existing hypertension if patient chronic hypertension أما حالها pre-existing أنا حالنا pre-existing hypertension أما chronic hypertension حالنا هو risk to نقطة preeclampsia more than هاي أنا طبعا hypertension قبل ويكبر طبعا risk بدل طبعا risk بدل تم متقنا of متقنا break قبتي high blood pressure أما chronic hypertension قبتها ويا سيدنا حالنا بكان قبل renal disease تمام إحنا حالنا بكان renal disease حالنا renal disease حالنا واحد زيادة أي وزيادة حالنا مرة the renal disease كان diabetes mellitus renal disease diabetes mellitus حالنا هذا ده قبل renal disease أما يقبل diabetes mellitus أما يقبل chronic hypertension حالنا disease حالنا واحد risk وزيادة سبب حالنا كان قبل antiphospholipid antibody syndrome antiphospholipid أنا حالنا antiphospholipid antibody syndrome أنا حالنا antiphospholipid syndrome وهذا قبته حالنا risk برنتهي risk وزيادة سيدو كان SLE أنا حالنا قبته SLE حالنا أيضا also حالنا هو risk of موجود preeclampsia سيدو كان خاوه هذا لقبت علينا sickle cell disease أنا حالنا أيضا sickle cell disease this حالنا هو risk of preeclampsia this حالنا هو the risk factor of preeclampsia the risk factor of preeclampsia وحنا قبلنا general وحكمل علينا age the extreme age iyo body mass index more than 7 genetic factor and family history اللي هو يخبط mother preeclampsia يقول لنا كان يسكن 20-25% هذه sister ولا شيء اللي يخبط علينا هو 30-40% يوجد الريسك إنه كان preeclampsia وبشرط وحنا أيضا primary pregnancy حنا نكبر تاعي multiparous أما كان multiparous حنا primary pregnancy هو risky multiple pregnancy هو risk من لو برضو إنه يحصل عندنا بالكورة هو هذا على شو أو single هي markii isku badin multiple pregnancy waa risky markii ay tahay previous preeclampsia ay qabtay riskiga way ziyaada sevenfold markii lagu badawada preeclampsia longi interval ama inta u dhaxayso mataqaana labada mataqaana pregnancy waxa loo yaqaan long kii hore ka waxa la interval ku dhaxayto bato waxana waa riskiga مثلا cunug ugu horeeyay hadda 10 saac u dhaxeeyo waxana waa riskiga preeclampsia marka dis waxaan leenahay waa riskiga hydrolysis vitality kamida tamam dis waxaan leenahay molar pregnancy medical factor ma jiraan cudurro oo ay qabto oo ziyaada yes oo mataqaana waxay qabtaa chronic hypertension waa risk waa ziyaada waxay qabtaa renal disease waa risk waa ziyaada what other of renal disease ma qaran renal disease oo way ziyaada kan risk of preeclampsia
diabetes mellitus qabtaa waa inaa type 1 ama type 2 risk of preeclampsia antiphospholipid antibodies oo tira qabtaa risk of preeclampsia SLE waxaa leenahay waa risk and sickle cell disease risk waxaa leenahay waa risk factors why are risk factors u badanaa because waxaa waaye hooyada lagu arko risk factors kan laba kamid aan ku arko waxaan siinaa wax la prophylactic dose waxyaaba waxay prophylaxis sida arki doona aspirin aan siinaa as prophylaxis si uu u joojiyo mataqaana inaysan hooyada gelin preeclampsia waxaa la siinaa aspirin and calcium ayaa waxaa siinaysaa prophylaxis waliba markay gaarna treatmentiga qayb waxaa la prophylaxis marka waxaa leenahay waxaa siinaysaa dadka risk ugu jira high risk waddanka diagnosis how to diagnosis bukaanka qabo preeclampsia as you know يعني patient preeclampsia mostly waa asymptomatic يعني what I mean asymptomatic يعني wax uma taqaana oo symptoms badana ma lahan preeclampsia only waxaan sameynaa screening screening marka waxaan ku sameynaa blood pressure-kii proteinuria iyo waxyaabaha oo sign and symptoms-kii ayaan waxaan ku sameynaa screening marka waxaan leenahay inay kuula imaato symptom badana waxaan leenahay waa rare يعني badana waxaa waaye symptom waxaa waaye waa severe preeclampsia laakiin waxyaabaha ay kuula imaado waxaa waaye oo mostly ay aan screening ku sameynaa waxaa waaye waa sign waxaa waaye an average blood pressure no blood pressure if more than 140 over 90 no two caution laba mar ayaan sameynaa ama 3 caution of blood pressure ayaan cabiraadu ka bato more than ama one hal mar aan cabiray wuxuu ka badan yahay more than 160 of one mo baan sameeyay one hal mar cabirto oo noqdo 60 ayaan laakiin dad boqol afartan boqol sagaashan ka badan yahay waxaa leenahay waa ku dhignaynaa 2-3 times ayaan check garaynaa marka waxaan diisaanaa diagnosis blood pressure ayaa cabiraysa soo number 2 waxaan fiirinaynaa diisaanaa blood pressure soo number 2 waxaan leenahay waxaan fiirinaynaa proteinuria yani proteinuria يعني arkaa yani inaan arko 1 plus cross markaan fiiriyo urine journal kan caadiga la sameynaa oo stripka ama waxaa cabir waxa loo yaqaano ama waxaan fiirinaynaa waxa mataqaana loo yaqaano PCR I mean the PCR inuu yahay protein creatinine ratio hadduu ka bato more than 25 ama ilaa 30 if more than 25 or 30 if more than waxaa leenahay this is waxaa leenahay waa indication ama waxay tusinaysaa leeyahay bukaanka preeclampsia yani hadduu ka badan yahay 25 ilaa 30 oo loo yaqaan milligram millimol sidoo kale waxaan ku arko kan number 3 waxaan ku arkaynaa screeningka waxaan arkaynaa edema soo edema arkaynaa edema haddaan ku aragno waxaa leenahay waa sign muhiim soo inkastoo edemada lagu arki karo hooyo kasta oo pregnancy ah badanaa xoog lama saaro xoog waxaan saaraa blood pressure ama proteinuria soo kale soo maamay ama 24 hour urine oo la shaxlaayo 24 hour urine marka ka bato 300 oo milligram if more than 300 oo milligram waxaa la indication of preeclampsia sidoo waxaan leenahay edema badanaa waxay dhahaan hadduu ziyaado 1 kg yani waxaan leenahay edema waxaa ziyaada leenahay 1 kilogram ziyaadayo ani 1 week kasto waxay ku ziyaada 1 kg ama inay ku ziyaado hooyada 2.5 kg 2.5 inay ziyaado 2.5 kg inay ku ziyaado kilogram bil kasto ani months bil kasto inay ku ziyaado ama inay ma ay ziyaado isu ka xalina waa say marka su'aasha kale aan usoo laabano marka sign kan ku arkay soo waxaan waa screen oo sameeyo preeclampsia symptom marka badanaa waxaa loo arki karaa severe preeclampsia if haddaan arko symptom means waxaa waa bukaanka waa severe preeclampsia marka aan qaybinayno preeclampsia aan qaybinayna soo waxaa la severe and mild wax calaamado malaha only blood pressure ka kacsan proteinuria jirto hooyada xaaladeeda iyo iskuulka xaaladdeeda badanaa ma aha xaalad ma mataqaana ma deterioration ma dhicin ama mildka waxaa leenahay ama severe waxaa arkaysa calaamadaha u arkay calaamad u arkay waxaa ugu muhiimsan leenahay severe headache epigastric pain soo madax xanuun epigastric pain blood confusion waxaa laga sometimes inay gaari karta blindness caadi meesha qof waxba arkaynba
waxaan waa severe preeclampsia oo tusinayso hadhow daawo arki doona marka treatment la gaaro. Severe preeclampsia waa terminated cunug laga soo bixiyo wax kale malahanba mataqaana wax hal kala ah malaha. Marka waxaan leenahay classificationka ayay ku xiran tahay. Marka intaan classification dhahno preeclampsia waxaan leenahay waa mild iyo severe. Maxay ku duwan yihiin? Mild only waxaa arkaysa high blood pressure, badanaa blood pressure-ka wuu ka yaryahay less than 160 wuu ka yaryahay 160 ilaa 110 less than yani wuu ka yaryahay. mostly wuxuu ka badan yahay yani more than 140 yani ilaa yani wuxuu ka badan yahay more than 140 ilaa 110 and less than 160 ilaa 100 less than this and more than this yani inay ka badan 140 ilaa 100 iyo yani wuxuu ka badan 140 ilaa 90 sorry 140 ilaa 90 uu ka badan yahay wuuna ka yaryahay 160 ilaa 110 uu ka yaryahay. This waxaana waa mild wax symptomna malaha mii fahanteen. This wuxuu ka yaqaana waa mild preeclampsia badanaa waxaa waaye termination cunug la saaro lasoo mataqaana termination gale badanaa uma baahno waa suul karnaa ilaa uu terminka gaaray. ama severe preeclampsia blood pressure-ka wuxuu ka badan yahay 110 sorry 160 systolic diastolic wuxuu ka badan yahay 110. This is severe preeclampsia. Number 2 wuxuu leeyahay calaamadihi gastric pain, headache, bladder infection and right upper quadrant pain and so on. This is severe. Number 2 haddaan ku arag ayada waxa loo yaqaan waxyaabihii baa inta HELLP syndrome waxa loo leeyahay severe. HELLP syndrome waxaa waaye hemolysis, elevation of liver enzyme, HELLP syndrome, elevation and low blood lead. Blood lead-kii waa yaraatay, liver enzyme waa kacsan yihiin, hemolysis. This waxaa indication ay tusinaysaa HELLP syndrome inuu jiro preeclampsia, severe preeclampsia. Labadaba severe preeclampsia waxay u baahan tahay waxa loo yaqaan termination afkooda lagu soo maxaa yeelay xaalad khatar ku jirta. Marka waxaa leeyahay waa severe markiga iskale symptomka iskale severe iskale laakiin ay preeclampsia maxaa lagu diagnose gareeyaa sign oo ah blood pressure, proteinuria and edema ayaa lagu diagnose gareeyaa preeclampsia inay jirto. ama severity-ga waxaan ku arki doonaa investigationska and symptoms. Symptom ay maanta investigation. What is the investigation that other side maxay? Investigation ka other ani hooyo tabto preeclampsia waxaan leenahay ani hooyo mataqaana preeclampsia qabto waxaan leenahay mostly waxaan u tirsanayna urine. So why are you controlling urine? Sa u fiirin sama proteinuria so yani waxaan leenahay waxaan dalbanayna urine. Hay number 2 maxaa dalbaysaa? number 2 waxaan dalbaynaa CBC. Why for CBC? waxaan fiirinaa blood lead maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay tahay low blood lead so I will look blood lead. معناته if haddaan arko inay blood lead ay hooseynayso aydan wanaagsan waxay tusinaysaa inay severe tahay preeclampsia. number 2 waxaan leenahay waxaan fiirinaa kidney function test ama renal function test. Why renal function test? maxaa yeelay most obstetric condition ama medical condition of obstetric can cause acute renal injury يعني لو كان acute renal injury so waxaan fiirinaa renal function test so waxaan ka xabsanaa in so haddaan ku arko renal function test inuu ku dhacay deterioration means aan ku arko bukaanka inuu mataqaana ay sii geyso kidney ama renal injury I will terminate inuu ka soo saaro so this complications ka qabsanaya. laba waxaan dalbanaa liver function test. Why liver function test? Also waxaan arko elevate liver enzyme ka tuu kacsan yahay waxay tusinaysaa inuu HELLP syndrome sababtoo ah baan waa severe preeclampsia noqotay. waxay u baahan termination. waxaa yeelay renal function test and liver function test for complication hadda ayaan iskaga fiirnaa. sidoo kale waxaan leenahay waxaan kaloo fiirinaynaa coagulation. Why coagulation? Coagulation waxaan rabnaa HCBC haddaan blood lead low tahay waxaan rabnaa coagulation. Why coagulation? haddaan arkay coagulation kana hoos u dhacayo waxaan leenahay indication of severe minus DIC. so DIC waxaan leenahay waa if bukaanka DIC means ay tusinaysaa inuu jiro severe preeclampsia so need termination. marka waxaan coagulation kan fiirinaynaa. sidoo kale waxaan leenahay oo ugu muhiimsan in ayadana aan fiirino ama mataqaana intaas ayaa ugu muhiimsan in aan fiirino oo urine inaan fiirino for protein inaan ka fiirino CBC for blood lead renal function test and liver function for complications oo HELLP syndrome inaan ka fiirino and mataqaana inaan fiirino waxa loo yaqaano DNC ama coagulation profile inaan aragno. marka waxaa leenahay disease waxaa leenahay waa investigationska aan u dirsanay hooyada. this waxaa leenahay waa mother investigation and fetus waxaa u dirsanay ultrasound. why ultrasound? yani ultrasound waxaan rabnaa fiiriyo severity cunug intuu maxaa yeelay preeclampsia most waxay soo kartaa in cunug ku dhacdo IUGR. what I mean IUGR? I mean IUGR intrauterine growth restriction cunug inuu yaraado cunug inuu yaraado cunug yariisa noqdo
injiriis IUGR maxaa yeelay ma helayo placentadii ayaa waxaa dhacayo blood flow ayaa yaraanayo waxaa ku dhacayo mataqaanaa waxaa ku dhacayo waxaa loo yaqaan heli waayo nutrition aan ku filan laanna blood flow placentada ka imaanaya cunuga aadayo waxay wadaan nutrientii aan soo cuntada iyo wixii dhamaan marka waxaa dhacay cuntada iyo wixii dhamaan in mataqaana ay aadi weyso marka soo IUGR mataqaana so marka waxaa leeyahay waxaan usmeynaa daily waxaan usmeynaa waxaa loo yaqaano ultrasound fetus waa aan fiirina fetuska sa aan fiirina inuu compromise inuu yahay waxaan fiirina waxaa loo yaqaano Doppler ultrasound umbilical uterine artery ayaan fiirina waa aan fiirina sa aan fiirina blood flow aadayo iyo cunuga xaaladiisa soo hadday noqoto مثلا تقول لك حلوة فيرسي diastolic blood flow ده على عملية ديك diastolic يرعب termination so why termination حيوان كحال هو خلاص نقول عندي تسوس ده IUFD so أنا مرة عارفين إن amount of lighter so amount of lighter viability and مثلا إحنا بين blood flow في مكان what is the complications complications مرة من أصلا عن كعجل مرة complications واحد سوق عني عشان نتكلم بأسرة كسر بالله من مرحلة بالله صح يعني complications waxaa leenahay waxaan kasoo bilaabeynaa madaxii soo يعني waxaan ka bilaabeynaa kor kasoo bilaabo soo madaxii kasoo bilaabo ilaa jirka dhan ku imaado soo يعني waxaan leenahay head soo head waxaa dhacaan leenahay inuu dhaco cerebral hemorrhage convulsion كما كوف سواء يعني لو تأخذ حلوة يقال إكلامسي إن الكونفلش ما هو إكلامسي جلسة أي cerebral hemorrhage سواء أما حلوة يقال مثلا إن كيني كتر مثلا stroke أما cerebral hemorrhage أما paralysis أما ويف مثلا في كيني كتر سواء اسمه حالنا هاي هو complication أما حاليا complication is of for مهارة سواء حالنا complication ما كان لبو mother and fetus سواء يعني حالنا mother and fetus mother the most system هو CNS lung heart and coagulation profile and kidney waxaas ayinta tusameyn marka madaxa lagu sameyn ay kalaamsiya cerebral hemorrhage muxuu keeni karaa blindness inuu madaxda ay xawiisa waxa loo yaqaan cortical blindness badanaa waa recurrence oo soo laaban haddii ay ka baxdo xaalad sidoo kale ay keeni kartaa loo yaqaano heart failure soo inay keeni karto left ventricular dysfunction in heartigi oo shaqay waay heartig waxay keeni kartaa liverka waxay keeni kartaa inuu dhici karo liver failure waxaa dhacayo rupture of capsular of liver ka dhacayo soo waxyaabaha sababa HELLP syndrome kuwa soo liver enzyme ma kaco sidoo kale waxaan leenahay renal wuxuu ka renal failure yani waxyaabaha sababa most common cause ka sababa hooyada obstetric ku sababi karo renal failure waxaa kamid ah ninkaan la yidhaahdo preeclampsia sikriga sidoo kale waxaan fiirinaynaa iyadana waxay keeni complications waxaa kamid ah DIC oo ah disseminated intravascular coagulation soo yani head waxaa lungi liverki and pulmonary waxay keeni kartaa pulmonary edema ismu waxaa leenahay sidoo kale waxay keeni kartaa complications waxay keeni kartaa chronic hypertension inuu noqoto later in noqoto chronic hypertension sidoo kale waxay keeni kartaa loo yaqaan recurrent preeclampsia soo waxay keeni kartaa risk of inay kusoo laabto marka soo socdo inuu noqdo recurrent preeclampsia in hooyada sii noqoto chronic hypertension so this is waxaa leenahay waa mataqaana complication madaxa kasoo bilaabo head indhihii sambabkii pulmonary edema liverkii heartigi kidnigii coagulationkii DIC waxaas waa complications kan sama iyo inuu noqon karto chronic hypertension la mustaqbalka soo socdo iyo inuu noqon karto inay ziyaado recurrent preeclampsia uu soo socdo inuu ku dhaco preeclampsia inuu ku dhaco waxaa leenahay waa complications iyo uterus wuxuu ku sababi karaa inuu mataqaana cunug gaar ah saameeyo waa abruption placenta so abruption placenta iyo sababtiis waxaa loo complications of mother what is the complications of fetus waxay keenaysaa fetus waxay keenaysaa inuu noqdo IUGR sama yani waxaa leenahay this is waxaa leenahay waa waxay keenaysaa inuu noqdo IUGR inuu noqdo IUGR ayay keenaysaa this is the most mataqaana waxyaabaha mataqaana ay saameyn karta inay tahay ama ay cunug u keeni karto yahay IUGR iyo inuu noqon karto IUFD waxaan leenahay IUGR IUFD aan sidoo kale بريتان سمو واي بريتان waxaa laga qaan nitrogen بريتان ana waxaan saar بريتان ana waxaan rabaa inuu kasoo rido meesha soo IUGR ana waxaa waay dhacay ama waxaa dhici kara IUFD ama بريتان ma ana soo waay maxaa yeelay inuu hooyada uu fiirsay kalaamsi xaaladda hooyada culusta inuu caadi culusta soo ay waqti waxaa rabaa inaan sameeyo termination waay termination sameeyna marka maxaa dhacay inuu بريتان ma noqon wuxuu baahan in nursery la geeyo
marka anaa waxaan kusoo baritaanka example waxaa loo qoray ayatologina baritaan idis marka waxaa lenahay complication of motherka iyo the fetus IUD and prematurity ama baritaanka treatment maxay tahay marka doctor treatment aan ka hadlayna maxay tahay treatment of preeclampsia marka waxaa leenahay introduction guud aan sameeyana marka waxaan leenahay hypertensionka waxaa leenahay waa the commonest inuu yahay medical during the pregnancy so inuu yahay commonest complicationska keeni karo of preeclampsia marka what is the aimka oo mataqaana maxay tahay oo mataqaana oo la sameeyo ama aimka muxuu yahay aan sameeyo termination ama aan treatment sorry hadafka aan leeyahay inaan sameeyo treatment waxaa u muhiimsan inuu yahay the commonest cause of this of the woman oo u dhimanaysa preeclampsia waxaan leenahay the most common cause-ka sababayo deathka of hooyada preeclampsia qabto waxaa waa cerebral hemorrhage waxaan leenahay cerebral hemorrhage yani cerebral hemorrhage the most common cause sababayo hooyada preeclampsia ay dhimato so I wanted to control the blood pressure why maxay cerebral hemorrhage maxay ka dhalanaysaa cerebral hemorrhage waxay ka dhalanaysaa severe preeclampsia marka waxaa leenahay bukaanka waxay u dhimanaysaa the most common cause u dhimanaysa waxaa waa cerebral bleeding ama cerebral hemorrhage cerebral hemorrhage waxaa sababayo the secondary of waxaa sababa uncontrolled blood pressure dhiigga aan la control ayaa sababa cerebral hemorrhage marka waxaa leenahay waa inaan marka waa inaan yareeya marka markaan treatment ku sameeyo waxaa yareynaa maternal riskigii hooyadii ku dhici lahaa cardiovascular accidentigii ku dhici lahaa ay u muhiimsan tahay cerebral hemorrhage marka without reducing mataqaana anigoo marka dhiiggaasaan yareynaa si anigoonan yareynaynin dhiigga aadayo blood flowga aadayo of the uterus ayadoo kale sidoo kale this waxaa leenahay waa hadafka aan daaweyna waxay tahay inaan aysan dhicin cerebral bleeding okay doctor number ayadan introduction waxaa laga rabaa inaad ogaato hadafka treatmentka aan leeyahay taas number waa inaan fahanto doctor the only treatment ama only cure ama daawada only of the preeclampsia is delivery of the fetus why maxaa yeelay high blood pressure maxaa sababa treatmentga sababa so waxaan sameynaa termination aan sameynaa aniga marka treatmentkii only waa delivery yani waxaa leedahay delivery of the fetus halkana ma jiro yani waxaa leedahay only cure waxaa leenahay of the preeclampsia daawada of preeclampsia the only waa delivery waa inuu cunug soo baxay daawo kale mara mifahad laakiin way daawooyinka aan siinaa maxay daawooyinka aan siinaa waxaa yareynaa riski of complicationska yareynaa inta cunug kasoo gaaraya termiga ama aan kasoo dhaweynayno haddii termiga aan soo gaarsiin weyna waxaan sameynaa termination marka treatmentkan waxaa waa the delivery of the fetus and placenta inaa cunug iyo placenta soo bixiyo is the only treatment of preeclampsia hadii what is the only treatment of preeclampsia delivery of the fetus and placenta daawo kale ma laha mifahad this waxaa leedahay waa introduction good marka maxaa sameynaa ani mostly waxaa sameynaa wax loo yaqaano general measurement maxaa sameynaa waxaa dida kasoo rabaa yani blood pressure treatment waxaa inaan xabka blood pressure daily inaan waan ula socono hadduu yahay mild preeclampsia waxaa sameynaa wax loo yaqaano conservative management soma waxaa sameynaa wax loo yaqaano conservative management waxaan sameynaa wax loo yaqaano conservative management marka waxaan leenahay haddii hooyada blood pressure oo yahay miya uusan gaarin severe uusan noqon uusan boqol bixi labaatan ka badan wax calaamada uusan lahayn waxaa leenahay waxaan sameynaa wax loo yaqaano conservative management laakiin haddii severe preeclampsia waxaa leenahay waxaa laga sameeyaa termination bilaha sameeyaa shaqada tagto marka waxaa leenahay measurement of blood pressure urine waxaa la isku hadlina waa urine volume kala soconaysaa soo blood pressure ka cabiraysaa urine volume urine volume waxaan ka cabsanaa soo maaha renal injury waxaa la soconaa urine volume daily aan la soconaa blood pressure ka la soconaa waxaa waa this proteinuria la soconaa daily body weight ka la soconaa platelet count ka la soconaa liver function test renal function test why maxaa yeelay anintan ku arko calaamadaha waxaa inay isbedelaan oo liverki iyo plateletka dhamad hoos u dhacaa plateletka hoos u dhacdo liverka hoos oo waxaas dhan waxay tusinaysaa bukaanka inuu xaaladu sii xumaanayso waxaa u baahanaa inaan sameeyo termination so marka isbitaalka sameyna admission oo sameyna soo admission of hospitalization oo sameyna and then waxaan u sameyna waxa loo yaqaano observation so of blood pressure la socota doctor ko maxaa sameyna hospitalization labo observation of fetal and maternal why fetal and maternal xaaladda hadii hooyada ay fiican tahay waxaan gaarsiinaa terminal intuu ka noqonayo la socota doctor
haddii laakiin severe noqoto waa termination regardless of gestational age ama fiirna aniga meequu marwaya waa soo bixina aniga waa laakiin haddii ay mild tahay waxaa leenahay waxaan u sameynaa treatment so mildka maxaa leenahay marka waxaan u sameynaa admission conservative management xaaladda la socona maternal waxaa la blood pressure urine volume liver function test balaadeedkii waxaa dama la socona if haddii xaalad istaagto waa sugaa cunuga ilaa uu ka gaarayo term ila socda doctor laakiin intaa mid kamid isbedesho waxaa leenahay termination regardless of gestation cunug wax igala intuu jiro fitaskaasna maxaa la soconaysa fetal daily waxaa xisaabinaa daily fetal count movement count movementigiisa xisaabinaya waxaa laga xisaabin cunuga meeqa maro dhaqaaqa maalintii way xisaabinaya waxaan u sameynaa serial sonograph ultrasound ama la socona maalin kasta yani Doppler ultrasound waxaa la soconaa umbilical blood flow waxaa la soconaa uterine blood flow mid kamid hadduu ku dhaco change waxaana la soconaa termination why لأن كل حالات حسين ما هذا واحد أمور أي في عينه أي stable خلاص يعني واحد سوق أنت يكسر دوانيس أما ترمي يكسر جانيس أما ترمي خالص أما يكسر دوانيس وحنا سينا نحلو كمان استيرويد في سينا واي استيرويد يعني واحد سينا أنا بيكسر ميزا سون واي أما بيتا ميزا سون واي because واحد زيادة ميزا لانج ماجور نقطة لانج إنه ماجور نقطة إيه زيادة ميزا سما شو إنه كده أصلا وبعد نيرسري أكسجين يحبس وبعد سما surfactant أي زيادة ميزا أنا أقول علينا هاي الدكان ده يعني معي اللي بس أسافر كده بس أدو معي اللي أنا hospitalization جيب ساعة جيبي observation أصلاً وهنا يعملوا دوسة هذا واحد كمان إثباتان ترمينه كده واحد إثباتان واحد يكون كان إلا هو اللي كانوا قناة ترمي observation دكتور مركز observation سمية تسمع كل كلام ما دكتور ده هو بالله سألوني كلام أنت هاي برتنشن واحد فهاي ليجر كان اسمه إلى داوية وحالنا وحنا سينا أنت هاي برتنشن بدرجة سينا يعني waxaa lahaa first line and second line this is waxaan leenahay miisaan dooba waa iyo labitinol iyo nifidib saddexdan waxaan leenahay waa first line of hooyada pregnant waa first line line ugu horeysa waa miisaan dooba inaan siiyo 250 ilaa 500 waa sama 200 ilaa 50 ilaa 500 waxaan siinaa TDS sama waxaan sameeyaa waa central active waa sympathetic oo ka active waa farmada ku soo central active ay labitinol waxaan siinaa 100 إلا لو بقول ملي كان بقول إلا لو بقول ملي كان بي دي نيفيتامين يعني وعملنا وكان إلا 20 صار نيفيتامين هذا وكالسيوم جال بلوكر وهو inhibition كسمينا كالسيوم influx أو جل سموث مثل كده أو يجو جل طبعا كالسيوم جال بلوكر سكي مركو حيرانا contraction محل عمل vasodilation لاجترول هو combination of alpha and beta blocker combination of alpha and beta blocker وأيضا سمع اسمه حاليا هو فريست لاين أرسين أما بيسال دولار أما لا يجتمع بميت كمان أيام الدورة وكلها توفيق يعني كمان واحد كونترول بلاد بريشر كده سبتاعين جي في حالة كده بس أنا عندي في هواية بلاد بريشر كده حوالي وبتجينا واحد سنة أنت هكذا الرازين بدنا نحلو استعمالها وأسكر إيو ألفا بلوكر هنا حالنا إيو الرازين وأسكر وحالنا هي لاين واحد يعني هذا الرازين الحين نسوي فاسوداليتيشن وسمينا سما بدنا emergency kalau استعمالها ألفا بلوكر كأنا نستخدمه حالنا هو فاسوداليتيشن أما بيتا بلوكر كحالنا هي not use during the pregnancy why not use because it's IUGR beta blocker kan blood pressure kan anak absen IUGR and beta blocker can cause IUGR kan hal kan respiratory neonatal respiratory syndrome وحالنا هي disease وحالنا هي بتقان ألفا بيتا بلوكر IUGR and neonatal respiratory depression زي ما marka AC inhibitor kan waxaa AC inhibitor kan waxaa leeyahay not used during the pregnancy unless hadaysan jirin pulmonary edema pulmonary edema not use AC inhibitor waayo loo isticmaalayo waxay hooyada high blood pressure ama eclampsiyada ah yani waxay dhahaan volume-ka already way yaryahay yani waxay dhahaan waa blood pressure oo kacsan and volume yar marka kaliya sida caadiga blood pressure oo kacsan waa volume bataa waa marka kaliya eclampsiyada waxa waaye blood pressure oo kacsan yahay volume of blood volume jirkan waa yaryahay so dan samee waxaan kasii intii yar haystaan kasii bixinaa soma obstetric measurement waxaan soo garanay general measurement waxaan soo garanay general measurement oo soo garanay haddana waxaan fahnay medical clinical and saddexdan oo obstetric waxaan rabaa inaan fiiriyo time of delivery waxay ku xirantaa laba shay depending on gestational age and the severity of preeclampsia severity if gestational age
waxay noqonaysaa laba mid sama term or preterm term or preterm if term maxaa waaye termination gestational age is term termination cunug waxaa lena sorry if preterm waxaan fiirinaa I will look the severity if mild or severe mild waxaa usabana conservative management if preterm and mild preeclampsia mild preeclampsia soo sheegay soo bilaab dashi wuu keenaya 160 wuu keenaya 110 wuu keenaya wax symptoms ma jiraan liver enzyme waa normal blood level waa normal DIC ma jirto wax complicated ma jiro only proteinuria and high blood pressure so waxaa lena this is conservative management okay term noqday terminate term ma aha waa suga way suga aniga leeyahay hagaaro xogaa termiga ama u soo dhawaado 36 35 37 iso gaarsii kadibna maxaa sameynayna kadibna waxaan la soconaynaa hooyadii oo taan soo sharaxay oo ah fetal and maternal observation haddii marka hooyadii fetalkii iyo maternal observationkii aan la soconaya mid kamid ah haddaan ku arkay calaamadihii ama sign ama symptoms of severity termination haddaan ku arkin waxaan sugaa ilaa uu cunuga soo gaarayo term waayo ani marba cunuga aan terminayna cunuga hooyada kasoo bixiyo oo dhow nursery teliga cunuga dhinto marka waxaa leena waxaan sugaa intaan soo gaaro waayo maxay caadi waa istaabo laakiin hadday severe tahay ma sugi karo ana severe lama severe waa ayada cunugii hooyada khatar ku jiro ayada khatar ugu jirtaa inay renal injury ama renal failure ku dhaco liver failure ku dhaco cerebral hemorrhage ku dhaco ma sugaa marka intii waxaas gala ma sugaa ma sugaa termination waa cunuga waa yaga doctor cunuga laakiin waa yaga ma gaarin cunuga waa doctor war wiyaa cunuga ma gaarin laakiin hooyada khatar ku jirto meesha ma fiirinayn cunuga waxaan fiirinaynaa severe data regardless of gestation cunuga kasoo rida hooyada okay doctor laakiin haddee maalinta cunuga xaylada waxaa usoo rido ka rabtaa sug ha dhamaystirta xilligiisii loogu talagalay 37 ha soo gaaro ama 36 soo gaarsii waxaana siinaysaa steroidkas iyo dexamethasone soo aan tagtaga la socotaa time of delivery waxaa dhahaysaa waxay ku xirtaa regard gestation age and severity dada ay term khalaas termination preterm severe ama waa mild severe termination mild haduu yahay conservative management conservative maxaa ka wada waxaa leena admission u sameyn and waxaan leenahay observation of fetal and maternal wixii ka cala waxaa ka fiirinaysaa sign of symptoms of preeclampsia kala soconaysaa meeshaas sign of symptoms of preeclampsia ama haas kala soconaysaa xaaladda kala soconaysaa waxaa cabbiraysaa blood rate-kii blood pressure-kii waxaa fiirinaysaa urine volume-kii creatinine-kii waxaas dhan baa la soconaysaa cunugii double ultrasound-kii hadii wax kamid isbedelaan fetal movement-kii hadduu yaraado double ultrasound-ka hadii blood flow cunuga waxaa la diidta waxaa terminate hadii waxaas isbedeli waayaan faraha ka qaad cunuga hooyada ha sug ilaa ay ka noqonaysateen termination yaa loo sameeyaa laba mid concept loo sameeya concept loo sameeya preterm ah waaye and mild preeclampsia laakiin isku sameyn severe preeclampsia imtixaanka waxaa lagu keeno scenario sheeko lagu keeno sheeko lagu dhaco saan waay mild preeclampsia waay ma lagu dhaha mild break 140 ilaa 90 waay wax symptom ma laha sooma wax symptom ma laha marka waxaa leenahay waxaan sameynaysaa markaas oo kale waxaa sameynaysaa 140 cunuga waxaa laga inuu dhaho waa 7 week what's your treatment termination why maxay loo taran amin sirka lagu siiyo waxaa lagu severe preeclampsia calaamadii severe preeclampsia lagu siiyo liver enzyme-ka kacsan u dhahay banaadadka hoose soo epigastric venous head eega leh sama calaamadii severe lagu siiyo ama waxa lagu leeyahay cunuga kasan age ku sabta what's your treatment waxaa sharaxaysaa wixii oo generalkii soo sharaxaysaa stabilization loo sameeyo leedahay blood pressure controlina and prevention of seizure-kii and then waxaan leenahay conventional-ka aan ka ilaalinayna kadibna waxaan siinaynaa termination mid socota termination markii u sameynaysaa waa termi ama inuu yahay termi ama inuu yahay termination waxaan sameynaa inuu yahay term inuu yahay ama inuu yahay ama inuu termi yahay ama inuu yahay severe preeclampsia waxaan sameynaa termination marka this waxaan leenahay preeclampsia termination of regardless of gestational age mode of delivery waa vaginal delivery ama cesarean section vaginal delivery taqaanay waay hadii uu yahay vulvar cervix ka doo vulvar yahay dhali karto hooyada inarna waa dhalnayna cesarean section oo sameeyana vulvar cervix ma aha induction ka failure garoobi ama waa mal presentation ama mal position waxaana waa cesarean section post partum care waxaan sameeyana inaan soo blood pressure kana soconana treatment-ga si wadina ilaa aan hooyada xaaladda ku hubsanayno waxaan siinaa loo yaqaan magnesium sulfate so usoo dhicin waxaa loo yaqaan waxaan siinaa magnesium sulfate 24 hour xalaa magnesium sulfate 24 hour ku wadina of maintenance si isna hooyada u gelin post natal ama post
postpartum eclampsia juga jismku علينا postpartum care. Intaas ayaan kusoo gabaneynaa cashirkeena. Sallallahu ala nabiyina